بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeena saddexaad maanta waxaan kusoo qaadanaynaa jadwalatul waqti fi ramadaan in qofkii ramadaanka soo uga faa'iidaysto uu jadwal u dhigto liannahu haddii qofkii uusan jadwal dhiganin uu naftiisa jadwalkaas uusan ku ximbaarin inay siduu u yahay u fuliso waxa uu arkayaa soo ramadaan dhammaaday waxbana uusan ka faa'iidaysanin marka intaan arrintaa u gelin waxaan rabaa in kelimo yar aan ka iraahdo bisha ramadaan soo gelitaankeeda caalamulislaami buuq badan baa ka jira bisha markay dhalinayso qolo iclaaminayso qolona waa ka tegay qolo waxa weeyaan waa taradudsan tahay marka sidee baa xalkeeda uu yahay culamadii hore waxay qabaan waxay isku khilaafsan yihiin mas'alo la yihahdo ikhtilaafu lmataalic oo lagala jeedo bishii dadna ma u dhalan kartaa dadna maxaan ku irahdaa ma ka maqnaan kartaa mase ummadda islaamka oo dhan hal mar bay wada dhalanay ummadda oo dhan koonka aabbaha hal mar bay bisha ramadaanka ay dhalanay mase way dhici kartaa in qoladaan arkaa ay u dhalato qoladaan ayna u dhalanin labada qowlba waa jiraan waxaan leeyahay maanta waxaa looga bixi karaa labadaas qowl maadaama teknolojiga ay hormartay labada qolow fuqahadeennii hore iyo salafkeennii ay isku khilaafeen mid ka mid ah waa la ogaan karaa markii culamaau lfalak iyo teknolojiga loo adeegsado bisha ma dadkoo dhammay wada dhalataa mase sidii loo kala horeeya u dhalataa labadaas midkood waa la ogaan karaa ayib haddii ayba dhacda inaan la ogaanin oo hadda khilaafka sidiisa u jira aan iraahdo waxaa weeyaan waxaan shaki ka lahayn muslimiinta badigood sharq al awsat iyo afriqiya inteeda badan isku miiqaat waaye hal mar bay wada dhalanay kalama fogo isku waqti waaye saacadda la isticmaalo hal saac iyo hal nusaaci ay kala fog yihiin waxaa wax isbedel keeni kara ma ah laakiin bisha gelitaankeedii baa la siyaasaday dowladdan baa iclaaminayso dowladan kalena iclaamin mayso liannahu tan markay iclaamisay qoladii kale markay qaada waayeen oo ayada laga qaada waayey kuwii kale markay ayaga sanadka damba arkaan ayagana waxay leedahay aniguba sana horaataan arkay wax iga qaatay waa adigana idinka qaadan maayo xaqiiqada jirta waxaa weeyaan meeshii isku waqti ah dhulkii isku waqti ah 100 dowlad iyo 10 dowlad waxay ahaan wixii isku waqti ah haddii hal meel laga arko oo dad lagu kalsoon yahay ay arkaan in la qaatay ahayd markaa sida xalka uu ku imaan karay waxay ahayd maadaama ay jiraan munadamaad oo caalamulislaami ay ku midaysan yihiin sida raabitat alcaalam alislaami ama munadamat almu'tamar alislaami dowlad kasta oo islaami ah ama shacbi kasta oo islaama meeshaas waa ku jira oo waxba u matalo marka in laga dhiga xilka la siiyo munadamat almu'tamar alislaami ama raabitat alcaalam alislaami in xilka ayada loo dhiibo oo dad kasta ay dad ka matalaan oo ay marka ayaga ay mutaabiciyaan caalam alislaami ay ku yeeshtaan maqaraad ay ayaga bishii raadiyaan markay ayaga go-aan ka gaaraan bishii inay dhalatay qoladaas oo dhan oo isku waqtiga waa u dhalatay ama muslimiinta oo dhan waa u dhalatay inay yidhaahdaan oo la wada qaata bay ahayd marka tii weli lama gaarin dad baa xaawilay welina layskuma wada waafaqin oo mushkilada sideedii bay qaa'im tahay ilaa xalka laga helayo nin kasta wuxuu ku qasban yahay dowladda uu ku dhex nool yahay waxay iclaamiso liannahu saas haddii aan la dhihin oo la yidhaahdo qof kastoo shacbi muslim ah meeshii kula raajaxsan raac qoladaas xalay iclaamisay qoladan kale habeen dambo waxaa ka laasimi lahayd halkii beled in haddana laysku khilaafo marka waxaa ka khayr badan bal qoladaana si un ha u wada qaadato qoladaas kalena si ha u qaadato intii qof loo kala tegi lahaa ay qolofdan maanta dukan laheyd birina qolo kale ay dukan laheyd maalinka saddexaadna qolo ay dukanayso hadda Bakistan iyo Iran iyo marka qaarkeed faariqa u dhaxeeya laba maalmood weeyaan marka arrintaas waa laga wanaagsan yahay marka in sidaa loo inanka wada shaqayno sidii dadkii isku waqti ah inay wada qaataan xil annaga noo yaalla waaye nin kastana wuu rabaaye weli taladii un baan aan dhammaystirmin
marka nasalu allah subxaanahu watacaala an yucajila bidalika inay ummadoo dhan maalina isla soomta sidii nabigu yiri asawmu yowma yasuumu nnaas waladxaa yowma yudaxi nnaas ummadda islaamka o dhan inay wada soonto hal marna wada anfurto ay soo wada xajiso waxa weeyaan waxdadii bay wax ka matalaysaa. aan u soo laabano qofka muslimka ah inuu mu'minka ramadaan suu ugu faa'iidaysto inuu jadwal dhigto. waxaan u leenahay sidaas kownkan dhan baa wuxuu ku dhisan yahay waa jadwalaysan yahay. waxaa ilaahayna sidaa u yeelay isbedelka koonka ku dhacayo nin kasta oo muslim oo ilaahay inuu caabudo rabo isbedelkaas inuu ka faa'iidaysto waqti kasta cibaadada ku munaasabaysan inuu qabsado yaa loogu talagalay. ilaahay wuxuu yiri asagoo arrintaa ka hadlay wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara w araada shukuura. ilaahay waa allaha habeen iyo maalin kownka u kala bedelay oo isdhaafayaan. habeenaa imaanaya maalin baa ku xigsanaysa habeen baa kusii xigsanaya. ilaahay wuxuu saas u yeelay labadaas inay isdhaafaan liman araada an yadakara ilaahay ninkii inuu xusa doonayo inuu ka faa'iidaysto aw araada shukuuran. marka isbedelkan habeen iyo maalin waxaba looga gol leeyahay waxa weeyaan inaad cibaadadaadii aad uga faa'iidaysatid mid kastaba waqtiga ku munaasabaysan. sidaas oo kale qamarkan ama dayaxa ama bisha naba si u yaqaano waxa weeyaan bil dhan habeen kastaba meel buu kusoo hoyanaa sibuuna u yaala. mar waxa weye hadduu dhalanayaa mar wuu yaryahay mar wuu sii weynaanayaa mar halkan sharqi oo galbeed wuxuu kaa jiraa bari haddana galbeed buu kaa marayaa. asigayaaba waxa weeyaan taariikh la akhriya wuxuu ilaahay saas u yeelay waxa weeyaan in laga faa'iidaysta bisha maraaxilka ay marayso in waqtiga lagu dabdisto lagu ogaado. markii ilaahay uu yiri wayas'aluunaka can ilahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj. nabi maxamedow bishaan bay ku weydiinayaan iyo xaalaadka ay marayso maxaa uu sababa markii ay ku yiraahdaan waxaad ugu jawaabtaa mawaaqiitu linnaasi walxaj. dadka ilaahay ugu talagalay bisha inay waqtiyaashooda iyo taariikhdooda iyo cibaadadooda ay ku calaamaystaan. marka waxaan wax iska socda ma aha hal maalin baaqan mayso. taariikhdan galoo gaaladoo miilaadiga la yiraahdo maanta hadday dhunto wax oo tusinaya ma jirto. haddii laakiin bishaan caawa aan garan wayno 14 la joogaa ma 15 la joogaa ayba dhacda inay naga dhunto annagoo tuulo joogno biri bay haddana halkaa ka soo baxaysaa koow haddana waa la qabsan karnaa way isa saxaysaa ninkii ka khaldanto. taa waxaa ku soo xigo cibaadaadkan ilaahay subxaanahu watacaala uu noo jiday kulligeed waa waqtigaysan tahay. waxaan nagula farad yeelay wax la yidhi salaad iska dukada xaj iska xajiya soon iska sooma la yidhi oo iska furan ma ah. salaad dukada waqtigaas dukada soon dukada bishaas sooma bishaas sooma xajka waqtigaas xajiya. waqti cibaado kasta waqtigeeday hore u wadata xataa taacaadka badigeed oo mutlaq oo manduubka oo sunnada xataa waa waqtigaysan tahay. wax yar baa waxaa la yidhahdaa cibaada mutlaqa. marka hadda salaadii ka soo qaado fiir subaxa waqti galuu leeyahay waqti uu ka bax buu leeyahay waqtigaas waxaan ahayn laga aqbali maayo. duhurkii waqti uu galo buu leeyahay waqti uu bax buu leeyahay casirka maqribka cishii sidaas weeyaan. marka inaad uga dayatid la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala waqtigaas uu kugu qiimay. zakadii adiga waqti bay ku leedahay maalinkuu lacagta ay ku soo gashay iyo maalinkay 12 bilood ku dhamaato inta ka waajibayso waqtiga ay kugu waajibayso cidda ay u waajibayso intoo dhan waa xadidan tahay. waxaa lagu barayaa jadwada adduunyada fawdo ma jirto. sidaas oo kale xajkii wixii oo dhan cibaadada ugu qaado. marka waxaan u jeednaa maadaama annagoo dhan aan nahay dad muslimiina diinteennana ay sidaas waqtiga ay u jadwalaysan tahay waxaan u jeednaa annagana inaan ka faa'iidaysanno oo cibaadada nagala rabo oo aan doonayna awqaada qiimaha badanna inaan samaysano. waqtimaad qur'aan akhrinay waqtimaad tasbiixsanay waqtimaad maxaan ku yidhaha tahliilsanay waqtimaa inaad waqti u samaysatid. yacni qur'aankii maalan waxaa tiri 3 jusaan maanta akhrinayaa ma hal mar baad akhrinay ma wada qaybinay sidee baad u akhrinaysaa. marka waa ina jadwal kugu qoran min tuluuci alfajri laga bilaabo ilaa tuluuci alfajri kadaba laga gaaro inaad wajad jadwal qodatid.
ood qoratid jadwalkaas marka waqtiga aad hurdayso, waqtiga aad wax cunaysid, waqtiga aad shaqadaada aadaysid, waqtiga aad cibaadada fulaana aad qabanay, waqtiga cibaadada fulaaniya aad qabanay inay kuu jadwalaysantaha la rabaa. lianna waxaan saas u leenahay naftaada haddaad u dhaaftid waxay rabtaa inay qabato waxaad arkay waqtigoo dhammaaday waxbana aadan qabsanin. marka hadhowti waxay noqonay ramadaankii markii uu dhammaado calaacalle inaad bilowdid. waa laga fiican yahay sidaas ayada. waxaa aan kugu darayaa inaad daacada aad kari kartid maanta oo aad samaysan kartid. fursada maanta aad haysid furso weligeed jiri doonta ma ah. maxaa yeelay waxaa dhici karto inaad biri jiratid oo waqtigii oo qiimaha badna ku soo maray aadan cibaadaysan karin. waxaa dhici karta in shawaaqil dunya shaqooyin aad adag oo aadan ka baaqi karin noloshaada ay ku xiran tahay inay kugu sallidanto. waxaa dhici karto duqnimo inay kaa daba timaado. marka maanta oo aad tahay maalin aad caafimaad qabtood cibaadada qaba karto waa fursa aad u qiimo badan aanan soo laablaabanayn. walidaalika nabiga waxaa ka ansaxay inuu yidhi iqtanim 5 qabla 5 shan ka faa'iidayso intay shan kale kugu imaanin. shantii waxaa kamid ah oo ka faa'iidayso lagu yidhi faraaqaka qabla shuqlika, intaadan shaqo haynin oo aad maanta faraaq tahay ka faa'iidayso intaadan shuql aadan gelin. wasixataka qabla saqamika, intaadan jiranin ka horna caafimaadkaada ka faa'iidayso. washabaabaka qabla haramika, 20 jirnimaadaada awoodaada fiiri. dadka markii ay 70 80 ay gaaraan cibaadadii xataa ma kari karaan, qur-aankii ma akhri karaan, qiyaamuleyl ma istaagi karaan, soonkii gaajadiisa wuu ku dhibaa. qofka hadduu da gaaro xataa soonka inuu soo mugayaa dhici karto. marka ka faa'iidaysaa lagu leeyahay. وفي صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. nabigu wuxuu iri 2 nicmo dadka way ku kadsoomayaan siday tahay ayagoon uga faa'iidaysanay dhaafayaan. waa maxay? asixatu walfaraaq, caafimaadka iyo faraaqa aad haysatid oo hadda maanta wax ku mashquuli aadan lahayn. markaadan guursanin, masruuf lagaa rabin, shaqo aadan bilaabin, lamid ma tihid markii intaasoo dhan ay wax kaaga yimaadaan. waxaa kuu sii dheeraade adduunyada waqtigeedaaba iska gaabanba. nebigu markuu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariibun ow caabiru sabiil, adduunyada waxaad la mid noqotaa ood ka soo qaadaa nin dhul asiga aanan aqoonin joogo oo kale. maanta diyaaradaa ku qaaday wadan aada weligaa tegin bay kugu dejisay, xaalkaada soo noqonaya. ama waxaa weya nin caabiru safiilin waxaa weya jidni maraayo oo kale suu yahay. walidaalika ibnu cumar markuu arintaas nebiga ka maqlay iyuu dadka nasiixa u soo jeeday wuxuu iri idaa amsayta falaa tantadir الصabaax wa idaa asbaxta falaa tantadir الmasaa. haddii aad galab aad gaartid subaxi inaad gaaraysa ha ku tashanin, haddaad subaxi aad joogtana galabta inaad gaari ha ku tashanin. wakhud min sixatika limaradika wa min xayaatika limowtika, waxaad u qaadataa buurisa caafimaadkaada maanta ka faa'iidayso adigoo oo uga faa'iidaysanaya waqtiga jirada kugu imaan doonto intayna kugu imaan horteeda ka faa'iidayso. intaad nooshahayna intaadan dhimanin uga faa'iidayso. marka waxa weeyaan waxaa khasaara ilaahi subxaanahu watacaala inuu cumrigaada dheereeyey 60 70 50 40 uu ku gaarsiiyey oo haddana aadan waxba ka faa'iidaysanin. waxa weeyaan wax oo hadhowtu ilaahay kugula xisaabtami doono. في حديث أبي هريرة عند البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. xadiidkaas bukhaari uu wariyo saxiixa ah wuxuu iri ilaahay nin cudurdaar waa uu dhammaystiray oo cumrigiisa dib u dhigay ilaa 60 uu ka gaarsiiyey. wax kaloo ku calaacala ma jirto. lowlaa akhartanii ilaah haddaad dib ii dhigi lahayd waa ka faa'iidaysa lahay. waqti aad tiraahda calaacal kuuma harin, waqti waa lagu sii ilaa 60 sana lagu gaarsiiyey. wixii aad ku qabsan weysa 60ka horo kadib aan ku qabsan lahay ilaa cumriga maxaad iigu dheeray weysa, waa calaacal macno aan keeni karaynin waay. walidaalika ilaahi wuxuu iri awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum الnadiir. fiiriya ilaahay wuxuu leey cumri miyaana idiin siinin qofkii uu kuwaana qaada karo. wajaakum الnadiir, nebi muxamed ama nebigii adiga diinta kuu sheegayna waa kuu yimid, cumrigii iyo caqligiina waa lagu siiyey.
marka haddii ad ka faa'iidayso nebigana wax ka maqli weyso cumrigaadana caqligaada aad ku laaban weyso yaad eedaysaa markaa. qaar yaroo mufasiriinta kamid ah waxay yidhahdeen wajaakum nadiir. wajaakum nadiir waxaa lagala jeedaa qowlka labaad qofkii inay cinro madaxiisa qabsato, kan horaa raajix ah. laakiin qofka markii u cinroobo hadiiba caqli iyo waanaqaad laga waayo goormaa laga sugaya? adduunyada waxaa ugu xunbaali nin weyn oo sidii caruurta u dhaqmay iyo nin yar oo nin weyn oo oday iska dhigayo, waxa weyaan tilaab aan ahayn buu qaadaya, waa qaab daran yahay. marka waxaa lagaa rabaa caqligaada inaad la xisaabtantid oo kulamaa ay sana kuu korodho inaad ku laabatid maxaan ku irahdaa caqligaada oo aad markaa aad cumrigaada uga faa'iidaysid inta yaroo ka hartay. marka waxaan u soo laabanaynaa ramadaan waxa layska rabo waa badan yihiin, wixii layska raboo dhan cid qaba kartana ma jirto. marka intaas adiga aad ka qaba kartid. hadda qur'aan haddaad tirahdo waan akhrinaya, kulamaa aad akhrisid waxbaa kuu sii dhiman. marka maxaa aad qaban kartaa? imisaad ilaahay baryi kartaa? goormaad tasbiixsan kartaa? marka wixii oo dhan waxa weyaan wax jad oo badan weeyaan, wax oo aad dhammayn kartid ma ah. tii ayada ahayd baa lagaa rabaa inaad bilaawdid. sida aad cibaadadii isku mid maaha, waa kala fadli badan tahay. habeenkii iyo maalintii awqaadeeda waa kala fadli badan tahay. marka sidee baad u beeqaamsanaysaa cibaadada teeda ugu qiimo badan inaad ku aadiso awqaadda wakhtiga ugu fiican? waxa inta laysku dhaafay intaas weeyaan. waxaa laga yaabaa wax badan inaad qabatid, nin kale oo intaad qabatay wax ka yar ka qabsaday inuu ka ajir badiyo. lianna waxa weyaan cilmi laguu sheegaya macnihiisa waxa weyaan shay kasta wakhtiga uu munaasibka yahay si ugu qiimo badan yahay loo faa'iidaysto. maalan habeenkii hadda inaad awalka ka dukatid inaad aakhir ka dukatid isku mid ma ah. faradkii ilaahay nagu farad yeelay oo salawaadkan isku ajri ah, subxiga wax lamid ah ma jiraan. wahaakada marka inaad fiirisid baa la doonaya. dadkii ramadaankii waxay u arkaan, hadda waan kuu sheegaya, oo jadwal la-aanta waxay keento qofkii wuu imaanayaa ramadaanka habeenaka uu soo galo caatifaa qaadayso maasha allah. saddexda habeenoo hore waxaad arkaysaa masaajidka waa buuxsamaa, meel taraawiixdii lagu dukada ma arkaysa. habeenka afaraad dulduleel baa bilaabanaya. marka habeenka sagaalaad tobanaad la gaaro hal saf iyo laba safaaba lagu soo haraya. dadaaba waxay u arkaan cibaado waxa oo ramadaan ayba tahay in loo qabto. haddiiba aniga taraawiixdii soo dukada ramadaan xaqiisa waaba gutayba, oo waa markuu soo laabto hawlihiisa kale iska galaya, cunid iyo sheeke iyo maanta dhan khalaas. aniga wuxuu ku leeyahay faradkiina waa dukaday, taraawiixdiina imaamka loo tukado, ramadaan xaqiisa waaba iska dhameyba. war saas maaha, daacaad badan baa jirto. marka intaan hadda daacaadkaas u gelin, waxaan rabaa bal salaada subxeed laga bilaabo ilaa salaada subxeed kale laga aado wakhtigaada qaybso, jadwal dhigo. cibaadada aan kaaga sheekay doono markaa khaanaadka kala gilgili insha allahu tacaala. muxaadarada soo socotaa waxaan kaaga hadli doonaa daacaadka way badan tahay, laakiin kuwooda ugu sii qiimo badan yaan kuu sharxi doonaa. marka ayagaas marka jadwalayso oo qur'aan ha noqoto, tasbiix ha noqoto, duca ha noqoto, ictikaaf ha noqoto, wakeyta ha noqoto. marka wakhtiyaashii u kala qaybi. haddii marka aad wakhti u dhigatid waxaad ogtahay maalin kasta inta kuu dhiman, waxba kaa dayacmay maayaan insha allahu tacaala. wabillahi tacaala towfiiq. sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin.